السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhalinyaro. maanta waxaan rabaa si live inaan u qaato trade oo goal ah. aan rabo inaan idin tuso qaabka loo analyze gareysto high time frame kan jooga. waxaa aragtaa previous daily high inaan weli lagu qaadin, sidoo kale previous daily lowga inuu yahay. waxaa naga koreeya highgaas oo aan rabno inaan target ka dhigano, colorkiisa aan ka dhigano maxaa la yiraahdaa blue. then markaa fiirisid suuqa waa uptrend. this candle markii above order block uu ku xirmay suuqu sii socda, laakiin highgan weli lama soo qaadin. then haddii aan isha marino 4 hour waxaan si fiican u arkaynaa structure-ka zone-ka aan joogno highgiisa ugu sareeyay inaan weli la gaarin. marka area laga kacay haddii aad fiirisid sidoo kale bartaan waa meel fair value gap ama meel BDR oo main threshold lagu imaaday. medib suuqa buygaas loo sii wadaa. sidoo kale sweep liquidity badana inta kaaga dhacay. sidoo kale 1 hour haddii aad isha sii marisid waxaan rabaa 5 minute iyo inaan ka qaato 15 minute entry. meeshaan waxaa ka dhacay sweep liquidity oo pure ah, oo calaashan suuqa uu ku tusinayo inuu sii soconayo buy uu sii aadayo. marka waxaan aadaynaa 30 minute iyadana ishaan sii marineynaa. waxaan si fiican u aragtaan bartaan 30 minute-ka zone-ka ay joogto inuu yahay zone accumulation ama sideways ah oo suuqa kor iyo hoos midna uusan aadaynin. laakiin markaas si u fiirisid suuqa waa bullish. reason-ka bullish uu yahay waa isla arki doonaa. high time frame-ka inoo soo sheegay. bartaan waxaa aragtaa OB kana waxaa la order block 15 minute-ka hadaa fiirisid. this is order block. intaan rabaa inaan entry ka qaato oo buy ah. bartaan hadda uu marayo ilaa ay targetkayga waxaan ka dhiganayaa highgan sababta aan u qaatay. waxaa la jooga main threshold-ga oo order block la jooga. isilkayga OB-ga gadaashiisaan soo dhiganayaa. trade-kan intaan ka qaadan doonaa insha Allah. reason-ka aan u qaadanayo iyo sababta waa isla arki doonaa. sababtoo OB-ga waxaa lagu xiraa above close kadibna logo waa la soo jibiyay. entry-gayga marka waxaan rabaa sweep-kan hadda la soo sameeyay main threshold-ga la imaaday inuu dhaqaaq fiican oo qurux badan oo buy uu ii kaco, maadaama maanta USD oo kale holiday uu jiro dhaqaaq badan uusan sameynin. laakiin somehow ilaa highgan oo kale hadda haddii uu isiiyo imsa bib waa ilaa highgan iska 33 bib. good. partial-kayga intaan ka dhigan doonaa. marka partial-ka intaan kala bixi doonaa kana waxaan leeyahay partial profit. okay, let's go down. aan u degano 5 minute si aan u fiirin waxa aan qaadanayno reason-ka uu yahay. barti entry-ga aan ka galay price action pure aan ku qaadanaya entry-ga waa aragtaan. barti entry-ga aan ka galay waxaa ku beegan fair value gap. diyaasi qoto dheer ah u fiiri. sidoo kale main threshold-ga fair value gap-kana waa aragtaa. pattern within pattern aad nihi jirna soomaan xilligii market structure-ka la isticmaalay. midkan waa OB saan hadda isku soo sheegnay 15 minute order block by 15 minute OB ama center-ka Nordic. okay, this is a fair value gap 5 minute fair value gap way kana dhexda Nordic. then entry-gan let us see marka sida uu ku dhamaado waa isla daawan doonaa insha Allah. sawiraan ka qaatay aan rabo inaan keedsado. waxaan sugaynaa dhaqaaq qurux badan inuu inoo dhaco biidinillah. I hope waa qaato mobilkan ka qaatay MT5 ka meesha igu jiro entry-gan haday. waxaan rajeynayaa markii in sida aan rabno uu noo yeelo. haddii uu TB na siino waa idinla soo wadaagi doonaa. haddii SL uu na siino waa idinla soo wadaagi doonaa insha Allah. well done guys. soo dhawaada. waxaa aragtaan automatically entry-ga aan qaadanay kanuu ahaa beerkii aan qaatay gold baa idin sheegay. entry-ga bartaanaan ka qaatay idin yiri. waxaan rabaa partial-ka inaan meelahan kala baxo. I hope waxaan ku qaataa account-nadeedii ka mid ah
meeshaan waxaa aragtaa gold haddii aan kugu dhufto SL iyo TB uu igu xiran yahay markuu soo dhaqaaqan qaatay intrigayga ayo meelahan inuu ku beegnaa markuu move-ka sameeyay SL kan iyo waxa igu xiran partial kan oo aan rabo kan maadaama aan 0.5 ku qaatay account-kayga already waxaa aragtaa marba haddii analyze-kaaga uu ku fadhiyo oo aad ogtahay lacagta meesha move-ka ay ka sameynaysa ama ay ka kacayso kalsooni waxaa ku qabi kartaa in xoogaha move-ka koowaad aad qaban kartid and that's good marka let us see asla daawano waxa uu inoo sameeyay insha Allah waanu wada fadhinaa oo sugeynaa doo ilaa idno soo dhawaada dhalinyaro I hope ugu dambeyn waxaa aragtaan targetkaygii partialka inaan qaatay oo trade-kan markaan bilaabay min bilow ilaa iyo dhammaad waa isla joognay analyze-ka daily aan kasoo bilaabay 4 hour 30 ilaa iyo 15 minute aan soo maray haddii aad fiirisid partialka waa kaasa SL iyo TB take profit-ku igu dhacay this is how marka liskugu xiro analyze-kaaga high time frame iyo low time frame I hope trade-kana waxaa fiican markaa qaadanaysid ama aad ka trade gareynaysid in setup-kiisa uu ku dhisan yahay time frame-kan aad ka dhisan tahay haddii aad fiirisid trade-kan markii aan qaadanayay waa kana before-kiisa intaan ku diyaariyay ka hor intaan qaadanin balaanka xataa waa u diyaarsado oo ah partial profit inaan ka qaato oo bartaan aan kasoo galay haddii trade-ka aad fiirisidna almost waxaa aragtaa barti uu kasoo dhaqaaqay inuu hal mar igu soo laabanin oo consolidation uu galay kadibna uu sii dhaqaaqay thank you guys waa ku mahadsantihiin daawashadiina ha iloowin haddii aad hore noola joogto waa mahadsantahay haddaad nagu cusub tahay follow dheh subscribe YouTube-keena soo saar waxaad ka faa'iidi doontaa casharada ama live-afka aan soo galno waxyaalaha iyo qaabka suuqa loogu trade gareeyo intaba